xafiiska horumarinta maaliyadda gurida deegaanka Soomaalida oo runtii loo habeeyay hanaan aad u wanaagsan noqon doonana tilmaan la hiigsado oo xafiisyadu waxintooda iyo hanaaninteeda markay noqoto ku daysho mudnaan doono xafiiskani sidaad arkaysaan wuxuu ka kooban yahay basement iyo ilaa 3 dabaq intaas oo adeegyo badan oo kala duwan oo xafiiska bixin doono parkinka laga bilaabo ilaa iyo qaybaha kala duwan ee shaqaaluhu waxa ku baxday xafiiskani resources macnaha dhismaha dhowr qaybood buu qaybsan yahay qayb waa physical wax la dhahaa ama qaybta dhismaha iyo daarada kore banaanka ee laamiga iyo wax la dhaho interior decoration afka qalaad ama maaragtay qurxinta gudaha waxa raaco qalabayntii isku dardaro lacagahaasi ilaa 180 lacag dhan ayaa ku baxday milyan marka loo eego bilicdii hanaanka meesha ka muuqday iyo dhaqaalaha waxaad waqtahay efficiency uu xismay waxaan isleenahay wax xafiiska badan wuxuu kamid ahaa xafiis ahaan anaga horumarintii magaalooyinka mashaariicdii lagu soo wareejiyay waa kii ugu horeeyay hadda xariga laga jaro arrintaana kulli aad baan noo farax gelinaysaa